أنا جمع قاعد واحد ليها محمد جامع دروش محمد جامع waxaan ka mid ahay beesha sool iyo sanaag iyo cayn baan ka mid ahay siiba degmada xudun waxaan halka baaq uga dirayaa kala hadlayaa maamulka Somaliland waxaan leeyahay idinku haddii aad Soomaali ka baxdeen oo Soomaalinimadii idinku diideen annagu haddaanu beesha aan magacaabanahay waxaanu nahay Soomaalinimadeena kamaanu bixin waxaanu idin kale aan ku darayaa intaa nimanka horgallada ah ee waraaqaha beenta idiin soo saxeexay ee jooga arbogaysa iska hesheen annaga nama matelaan waxa ay idiin saxeexaanna waxba kama jiraan magacoodana waxaa la yidhaahaa ceeb tarayaal baa magacooda leeyahay halkoodayna ku fennashan yihiin idinka markaa waxaa idin leeyahay jaalayaal waxaa idin leeyahay wixii idinka idin dana ku socda taasoo ah inaad meeshiina ku ekaataan dal iyo dani midna inagama dhexaysa ninkan hadalka qabsaday xasan baa la yidhaahdaa waxaan ka hadlayaa nimanka Somaliland sheeganaya oo dal diidka ah oo Soomaali diidka ah waxaan kula talinayaa dadkiina ku ekaada dadaydin xoolo inay ka dhaxayn oo dal inay ka dhaxayn oo maal inay ka dhaxayn maalin walba ha soo qabsanina ku heli maysaan dhul bahantaad heshaan baad helaysaan ixtiraaf haddaad niyada geliseen heli maysaan dhul bahantana afarta wiilood maalinba laalushtaan kuma eka wuxuu ku egay garaad Saleebaan buu ka go'aa iyo garaadada lamid ah buu ka go'aa dhul bahante kuwa ilaa ay kuwaas aad ka heshaan maanday cid kale heli kartaan hana ku soo noqonina sidaa iyo maca salaam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddana waxaa ku wareegay hadalkii Nuur Xasan Falaal oo reer London muddo badan ahaa waxaan ka hadlayaa dadkii orbogays ku shiray oo Maxamuud Bari sheeganay Maxamuud Bari way yihiin runtii laakiin haddana Maxamuud Bari kuma dhamma intii orbogays ka muuqanaysay kameradu ay qabanaysay Maxamuud Bari inta kaliya Maxamuud Bari wuxuu leeyahay Saleebaan baa xukuma Maxamuud Bari waa dalkiisii Saleebaanna waa nool yahay waana caafimaad qabaa cidna ma uusan soo dirsan uma odhan ciddaas ay betasha shirkana lagalama tashan marka waxaa meeshaa ka muuqata shiraf duuba inuu ahaa oo dadka 190 digrii mar qura wareegay oo yiri Soomaaliya baa nahay waa dad dangooniya iyagu wato dangaara wata oo bay dadka anagu aan u aragnaa cidna ma matelaan reer Maxamuud Barina ma matelaan kana Saleebaan wuxuu joogaa waa caafimaad qaba wuxuu joogaa amiiraadku joogaa haddana waa la fasaxay oo dhaqso ugu noqonaya marka shirka waxa la wax ka jira